Waxaa soo baxaya warar sheegaya oo lagu kalsoon yahay in fanaanka caanka ah ee Cabdi Dhaanto lagu xidhay gudaha Muqdisho. Waxaa kale oo la sheegay in fanaanka uu ku lug leeyahay kooxda Shabaab. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in fanaanka uu rabay inuu isku qarxiyo gudaha tiyaatarka Muqdisho, halkaasi oo ciidamada ammaanka Soomaaliya ay soo qabteen. Sidoo kale, mar ay hadleen ciidanka sirdoonka Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in lagu dabar joogo oo baadhitaan ballaaran lagu hayo fanaanka caanka ah ee Cabdi Dhaanto, kadib markii lagu eedeeyay inuu kooxda Al-Shabaab ku lug leeyahay. Dhowaan unbay ahayd markii uu ka hadlayay wiil fanaan ah oo la xidhay gudaha Muqdisho, waxaana uu soo qoray bartiisa Facebook ku soo qoray qoraallo iskhilaafsan oo uu fanaanka kaga hadlayo, waxaana muuqatay in fanaanka uu ku taageerayo Cabdi Dhaanto. Ayaa in dhoweyd ciidamada ammaanka waxa ay ku daba joogeen sidii ay baadhitaan dheer ugu samayn lahaayeen. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in fanaaniin fara badan oo gudaha Muqdisho ka howlgala ay ku jireen kooxda Al-Shabaab, waxaana loo aaneynayaa in fanaanka caanka ah ee Cabdi Dhaanto inuu ku lug leeyahay kooxdaasi. Sidoo kalena la soo bandhigay inuu rabay inuu isku qarxiyo tiyaatarka weyn ee Muqdisho, halkaas oo maalmihii ugu dambeysay qoraalladii uu soo qoray barta Facebook iyo sidoo kale muuqaaladii uu live-ka ah uu soo geli jiray ayaa waxaa ka dhashay dareen ah in uu kooxda Al-Shabaab ku jiro. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay barkii soo qabatay fanaanka, waxaana ku socota hadda baadhitaan xoog leh oo gebi ahaanba fanaanka lagu baarayo inuu ku jiro kooxda Al-Shabaab, halkaas oo maalmihii ugu dambeysay kooxda Nisa ay baadhitaano xoog weyn ka waday gudaha magaalada Muqdisho, halkaasi oo lagu beegsanayo fanaaniin sidoo kale iyo siyaasiyiin. Waxaa soo baxaysa in kooxda Al-Shabaab ay gudaha Muqdisho ku leeyihiin awood xad dhaaf ah, halkaas oo la arkayo in maalinta kasii dambeysa ay soo baxayaan kooxo cusub oo ay ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa sirdoonka Soomaaliya ay soo bandhigayaan. Si kastaba ha ahaatee, fanaanka caanka ah ee Cabdi Dhaanto ayaa dhowaan ka tegay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, waxaana uu tegay Jigjiga, kabacdina waxa uu ka soo noqday Jigjiga, waxaana dhacday in gudaha Muqdisho lagu qabto, sidoo kalena baadhitaano xoog badan lagu sameeyay. Waxaana si aad ah loogu aaneynayaa fanaanka in xadhiggiisa uu sabab u yahay qoraallo kala duwan oo iskhilaafsan oo uu ku soo qoray barta Facebook uu isticmaalo, halkaas oo fanaanka laga raacay. Waxaa jirta in ciidamada sirdoonka Soomaaliya ay hadda awooddoodu noqotay mid awood leh, kuwaas oo gebi ahaanba dadka dabagal ku sameynaya, haddii ay noqoto Facebook iyo haddii ay noqotoba moobilka gacanta ee telefoonka. Waxaa jirta in dhowaanahan ay soo baxayeen in kooxda Al-Shabaab ay qaraxyo xooggan ka geysanayeen gudaha Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, waxaana jirtay habacsanaan ku aadan sirdoonka Soomaaliya, waxaana la sheegay in xukuumadda dowladda federaalka ay xoojinayso sirdoonkeeda. Kastaba ha ahaatee, Al-Fanaan Cabdi Dhaanto hadda waxa uu ku xidhan yahay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, halkaasi oo baadhitaan ballaaran lagu hayo. Waxaana la sheegayaa in fanaanka haddii dambiyadaas lagu helo la maxkamadeyn doono, haddii lagu waayana lasoo fasaxi doono ay dowladdu faraha ka qaadi doonto. Waxaa jirta olole ka dhan ah dowladda federaalka inay ku baacsato kooxaha Al-Shabaab ee ka dagaalama magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya.